Hello. Waidi salaamay magaca Rabbi Ciise Masiix aan ku salaamay. Casharkii oo usbuucii laba mar caadada noo ahaan jiray oo live-ka aan soo galay Brian waxaan ku bedelay in aan soo duubo. Arka maantay arrin oo casharadii hore kala ka duwan ayaan idin wada. Arrintaas waxay tahay waxaa soo kordhay Brian dad leh macnaha marba wuxuu leeyahay masiixi baan ahay qof dhahaya waa la isbaranayaa dadkii masiixiyiintu baranayaa muddo dhowr bilood ama wax yar kadib qofkii wuxuu leeyahay masiixi miyay muslim baan ahay. arrintaas marka waxay shaki ku abuurtay ama ay walwal ku abuurtay dad Soomaali masiixiyiin ah oo Soomaaliya ku nool oo laga yaabo in qofkaas shalay isku bareen ama isku barteen inuu masiixi yahay qofkaas. Marka ayaan rabaa inaan kitaabka idin kaga aqriyo. Waxaan kaloo doonayaa inaan siiyo talooyin dadka Soomaalida masiixiyiinta cusub ah. talooyinka aan rabo inaan siiyo marka waxay ku koobna waa saddex talo ayaan siin lahaa qofka Soomaali masiixiga cusub oo Soomaaliya jooga laga yaabo in uusan rabin ama uu rabinba in la ogaado dad kale inay ogaadaan ama qofkii Soomaali masiixi ah oo xataa qurbaha joogo oo masiixnimadiisa u qarsoon tahay sababtii doontaha ku kaliftay. saddex talo ayaan u soo jeedinayaa oo inay ku dhaqaaqaan arrintaas waayo arrimahan soo kordhay kulay aniga sidaan islahay waxaa laga leeyahay dan ama si daacad ah u dhacdo oo qofka iimaanka shalay uu ku qancay oo masiixiga ahaa ama uu dad uga dayday laga yaabo maanta ha ka noqdo ama ujeedo kale ha laga lahaado oo arrinta ha ahaato arrin qayb ka ah macnaha dhibaatada dadka Soomaalida masiixiyiinta lagu hayo. inkastoo aniga aan u badinayo 70% inay tahay arrin ula kac loo samaynayo oo loogu talagalay ama dadka Soomaalida masiixiyiinta in sirtooda lagu ogaado iyo meelaha ay kala joogaan kadibna dhibaato la soo gaarsiiyo. Soomaali masiixi cusub hadda tahay walaal oo Soomaaliya ay joogto ama waddan kale qurbaha joogtada dooneen in masiixnimadaada la ogaado horta waxaan kugu talinayaa qof kasta oo Soomaali masiixi ah ahay dhaho inaadan aaminin. qof kasta oo Soomaali masiixi ah ayaa aan dhaho inaadan aaminin. tala aniga waxaan ku soo jeedin karaa ilaan Soomaali waa dadkaagii waana dadka u baahneed inaad wax isweydaarsataan oo rabbigana ka wada sheekaysataan rabbiga wada amaantaan wada duceysataan iskaalmaysaan markii baahi timaado ama dhibaato timaado isku duceysaan markii xaalad adag ay timaado. saddexda tala aan ku soo jeedinayaa horta waxa weeye qofka aad aaminaysid inuu masiixi yahay oo sirtaada aad ku qarsanaysid marka ugu horeyso waa inuu noqdo qof Soomaali masiixi hore ahaa taariikhdiisa soo ogaanaysaa qofkaas ama isaga weydiinaya ama meel kale ka soo ogaanaysaa inuu yahay qof Soomaali masiixi ah oo hore masiixnimada muddo ku jiray oo masiixa si fiican u dhaxgalay oo masiixa yaqaano. numberka labaad waxa weeye inuu yahay qof rabbiga daacad u ah. qof rabbiga daacad u ah inuu yahay qofka aaminay sidaas ha noqdo. haddii adiga isqarinaysid waxaan kugula talin lahaa waliba dadka aad aaminaysid inay noqdaan dad wajiyadooda banaanka yaalo masiixnimadooda aan qarsan. daacadnimada qofka masiixiga waxaad ku ogaan waxyaabaha qaybta ka waxa kamid ah inuu qofku yiraahdo masiixi baan ahay masiixnimadiisa banaanka uu soo dhigto waa qayb kamid ah. nabadda saddexaad waxa waaye inuu yahay qof mas'uul ah. qofka aad sirtaada ku aaminaysid waa inaad iska fiirsid marka hore iska baratid la sheekaysatid qofka sirtaada ku aaminaysid oo aad u sheeganaysid inaad masiixi tahay adiga oo Soomaaliya oo kala jooga waa inuu noqdaa qof mas'uul ah waa inuu noqdaa oo aad fiirin kartaa qofka hadduu Facebook kala isticmaalo waxyaabaha Facebook ku soo qoro asxaab dadku uu leeyahay waxaas oo dhan ayaad ka ogaan kartaa qofkaas mas'uuliyadiisa ama cabirkiisa intuu gaarsiisan yahay qofkaas. arrintaas marka aan ka gudbo waxa weeye taladaas markaan ka gudbo waxa waaye horta
masiixa rabbigeena aan raacayno inteena masiixiinta masiixa rumaysan waxa weeye rabbigeena tusaale wuxuu u yahay silac ayuu tusaale u yahay ereyga eebbe markuu dunida yimid wuu rafaaday waa la dhibaateeyey waa la nacay waa lagu candhuufay ugu dambeyn isku talaabtaa lagu qodbay dadkii oo dhan asagoo carisay asagoo wax xumaan samaynin weligiisna xumaan samaynin samafal keliya samaynayay ayay dadkii naceen rabbiga wuxuuna dhahay annaga haddii aad rabtaan inaad xerteyda noqotaan xerteyda haddaad rabtaan inaad noqoto waa arrin muhiima oo la rabo inuu ogaado qofka Soomaali masiixi ay noqonaya dhahaya qofka Soomaali masiixi ay noqonaya dhahaya waa inuu ku talagalaa silac iyo rafaad waa inuu ku talagalaa masiixnimada wax cayaar maahan waa inuu qofku ku talagalaa silac haddii diyaar u tahay boqortooyada Ilaahay inaad silac ku gashid oo lagu saxariiriyo oo lagu dhibaateeyo oo lagu caayo ilaa ugu dambeyn lagu dilo iimaankaaga welcome masiixa waa soo raaci kartaa laakiin masiixa cayaar maahan game maahan masiixa wuxuu leeyahay kitaabka Yohana injiilka Yohana sidii uu rasuul Yohana u qoray injiilkiisa cutubka 15aad aayadda 18aad masiixa wuxuuna leeyahay dunidu hadday idin nacbaato waad garanaysaan inay hortiin inabcaatay haddaad kuwa dunida ahaan lahaydeen dunidu kuweeda way jeclaan lahayd laakiinse kuwa dunida ma yihiin waanse idinka doortay dunida taas aawadeed dunidu way idin nacab tahay aayadda ku xigtay oo 20aad waxay leedahay xusuusta hadalkan idinku eri addoon kama weyna sayidkiisa hadday isilciyeen idinkana way idin silcin doonaan hadday hadalkayga xajiyeenna kiinana way xajin doonaan waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay laakiin waxyaalahaas oo dhan waxay idinku samayn doonaan oo dhahay rabbiga magacayga aawadiis waa maxaa yeelay waxaanay garanayn kii soo diray rabbiga wuxuu leeyahay dadkan inacab oo inacab maadaama aan sayidkiina ahay aniga dunida way nacabtaa way nacbaatay idinkana way idin nici doontaa haddii aad rabtid inaad masiixi noqotid dunida inay ku nacdo waa inaad u diyaar garowdid waa inaad u diyaar garowdid caay waa inaad u diyaar garowdid bahdil waa inaad u diyaar garowdid hantidaada la dhaco waa inaad u diyaar garowdid ugu dambeyn in lagu dilo haddii awood lagu hayo markaas dunidu dadka dunidu wayna necab yihiin anaga masiixa wuxuu dhahay waxaasoo dhan waxay u samayn doonaan waayo kii soo diray ma garanaya masiixa waa ereyga eebbe ilaahay ereygiisa xaggiisa uu ka yimid eebbihii masiixa soo diray oo dunidan u soo diray ayayna garanayn marka waxay waxaasna u samaynayaan garasho la'aantaas ay u geynayso ilaahay ma yaqaanaan hadday rabaan ha sheegtaan magaca ilaahay inay yaqaanin laakiin ma yaqaanaan marka waxa weeye marka arrintaas waa lama huraan inaad ogaatid masiixi aan noqonaya haddaad dhahdi haddaba iska joog haddii kale masiixi baan noqonaya haddaad dhahdi boqortooyada ilaahay waa silac iyo rafaad ayaad ku gelaysaa laakiin awood ayuu rabbiga kuu siinayaa waxaasoo dhan in aad ka gudubtid ama asagaa kaa gudbinaayo rabbiga wuxuu nagu dhahay kitaabka Matayos aayadaha waxaan rabaa inaan idin akhriyo sida dunida ay noo nacab tahay sida dunida ay noo silcinayso sida dunida aanan u istaahilin anaga rabbiga dunida uu naga doortay wuxuu dhahay kuwa dunida ma tihiin kitaabka Matayos cutubka 5aad Matayos rasuuladii masiixa ayuu ka mid ahaa dadkii masiixa la socon jiray oo masiixa u doortay inuu injiilkan soo gaarsiiyo Matayos cutubka 5aad wacdigii buurta rabbiga masiixa ah wuxuu nagu dhahay aayadiisa 10aad sidan ayuu nagu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa xaqnimada aawadeed loo silciyo waayo boqortooyada jannada iyaga leh waad barakadaysan tihiin goortii laydin caayo oo laydin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheego aawadee farxa oo reereeya waayo jannada abaalgudkiinu waa ku weyn yahay waayo sidaasay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyay masiixa wuxuu leeyahay waa barakadaysan tihiin kuwa xaqnimada aawadeed loo silciyo
ayaa barakadaysanayuu masiixa leeyahay waana barakadaysantiinoo leeyahay goortii laydin caayo oo laydin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah laydinka sheega awadeed arrintaa marka barakaa noogu jirto waayo masiixa aayadda wuxuu kusoo gebagabeeyey sidaasay u silcin jireen nabiyadii idinka horreeyay dunida oo dhan dadka ilaahay xaggiisa ka yimid way silcin jireen oo way dhibaateyn jireen marka anaga qayb waxaan ka nahay dadka ilaahay ayaan qayb ka nahay ilaa waqti hore ilaa iyo hadda ilaa iyo gabagabada dunida dadka dunida way silciyaan kuwa eebba uu doortay haabiil iyo qaabiil ayaa ugu horreeyey qaabiil haabiil wuxuu u dilay waayo haabiil ayuu eebba aqbalay sidaasna kitaabku wuxuu leeyahay ilaa ugu dambaysta sidaas ayay ahaan doontaa marka arrintaas uu qofka ogaado ama ay tahay inuu ogaado masiixa dartiis dhibaatada u soo gaarto qofkaas wuxuu ka sii qaadayaa iimaan waayo marka rabbigaaga uu ku yiraahdo dadku aniga daraadday ayuu ku nici doonaa adiga waxba ka samaynin ayaa daraadday laydin nici doonaa wixiina waa arkaysaa maantay oo sidii qoraxda ayay u muuqataa dadka masiixiyiinta ah lama jecla qofka masiixi aan ahay hadduu dhaho dunidu way quursanaysaa qofka masiixiga ah waayo rabbiga ayuu rumaysan yahay qofkaas matayos cutubka 10aad aayadda 16 ilaa 18 rabbiga wuxuu nagu leeyahay sidan rabbiga wuxuu leeyahay waxaan idin dirayaa sidii idayay ku dhex jira sida daraadeed aqli u lahaada sida abeesooyin oo u sir la'aada sida qooleeyo laakiin dad iska jira waayo waxay idin dhiibi doonaan shirar oo sunagogyadooda ay idinku karbaashi doonaan oo waxa aawaday leedin horgeyn doonaa taliyayaal iyo boqorro inay mara ku noqoto iyaga iyo dadka aan yuhuud ahayn rabbigu wuxuu leeyahay idayay ku dhex jiro oo kale ayaan idin dirayaa waayo idinku ayaa tihiin dad iska masaakiin ah yeedana waxa waaye dadka dunida marka rabbigu wuxuu leeyahay sidii idayay ku dhex jiro ayaan idin dirayaa wuxuu leeyahay marka waa inaad u caqli lahaataan sida abeesooyin waana inaad u sir lahaataan sida qooleeyo sida abeeso waa inaad u caqli badnaataa waayo abeesada guriga ay ku jirto lama ogaado gurigaasay ku dhex fadhisaa maanta mana ogid marka sida abeesada waa inaad u caqli badnaataan oo qaasatan qofkii meel masiixiyiin aan u badnayn joogo oo cabsanaya iimaankiisa la cabsanayo waa inuu xigmad isticmaalo xigmadana rabbigaa ku siinayo rabbigaa daawadiisita asagaa ku siinayo waa markaas sida abeesa inaad caqli badnaataan sida qolleyn inaad u sir la'aataan oo inaad adiga isbixin kartid inaadan ogaanin oo sida qolley aad noqotid wax qof aan sir dhan aqoonin oo iska masaakiine oo hambal iska ah marka rabbiga wuxuu noo sheegayaa marka meeshan aayaddan 19aad wuxuu leeyahay rabbiga ha ka walwalina aayadda isla cutubkaas aayaddiisa 21aad cutubka matayos 10 aan ka hadlaya isla aayaddiisa 21aad waxay leedahay walaalba walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo rabbiga wuxuu noo sheegayaa xataa dadku inaysan nagu ixtiraami doonin walaalnimo qof kula dhashay masiixiyan aad dhahdid maanta waxa laga yaabaa inuu dadku ku dilaya asaga qofka koowaad inuu ka noqdo laga yaabaa walaalba walaalkiis wuxuu u dhiibi doonaa in la dilo dhahay aabbana wiilkiisa caruurna waalidkood ayay ku kici doonaan oo dhimashay gaarsiin doonaan rabbiga aayadda 22aad wuxuu leeyahay dadka oo dhan ayaa magaciga aawadiis idin nacbaan doona laakiin kan ilaa ugu dambaysta adkaysta kaasaa badbaadi doona rabbiga wuxuu leeyahay waalidka iyo walaalada iyo caruurtaada iyo saaxiibada ay dadkaaga oo dhan waxay kugu nici doonaan ama kugu goyn doonaan ama ay kugu diri doonaan masiixi maxaa u tahay rabbiga wuxuu leeyahay marka dhibaatootaan oo magaaladan idinku silciyaan aayadda 23aad laakiin goortay magaaladan idinku silciyaan tan kale oo carara haddaa qeexi kartid qofka waa inuu ka cararaa meesha ay joogaan dadka rabbiga ka geesta ah oo rabbiga cadow ku ah waayo waxaan idinku leeyahay dhahay 24 aayadda 24aad waxay leedahay qof xira macalinkiisa kama sareeyo adoonkuna sayidkiisa kama sareeyo waayo rabbiga wuxuu leeyahay aniga ay nacbaatay dunidu idinkana way idin nacbi doontaa sababtan ayuu leeyahay qof xir ah
macalinkiisa kama sarreeyo addoonkuna sayidkiisa kama sarreeyo waa ku filan tahay qof xira inuu noqdo sidii macalinkiisa oo dhahay addoonkuna sidii sayidkiisa rabbiga marka wuxuu leeyahay cutubkan marka uu sii socdaa aayadda 26 ayaa waxay leedahay sidaa darteed ha ka baqina waayo wax daboolan ma jiro oo aan soo muuqan doonin wax qarsoonna ma jiro oo aan la garan doonin rabbiga wuxuu leeyahay waxaasoo dhibaato ay idinku samaynayaan ha ka baqina uu leeyahay aayadda 27 cutubka 10aad ee kitaabka Matayos wuxuu leeyahay rabbigu waxaan gudcurka idinku sheego iftiinka ku dhaha oo waxaad dhigta ka maqashaana guryaha dushooda kaga dhawaaqa ha ka baqina aayadda markale ku celinaysaa kuwa jirka dila laakiin aan karin inay nafta dilaan waxaad se ka baqdaan kan jahannamada ku halayn kara nafta iyo jirkaba eebe ayaa nafta iyo jirkaba jahannamada geyn karo waa isaga awooddaas iska leh marka rabbigu wuxuu leeyahay kuwa jirka dila laakiin nafta aan dili karin waayo anagu jirkeena iyo nafteena jirkaan markaan ka dhaxbaxna nafteena waxay la joogaysaa rabbiga qofku marka cabsida ilaa heerkaas inuu gaaro ma ahan oo zaid uu cabsado qofka masiixiga rabbiga kitaabka meelo badan ayuu wuxuu ku leeyahay ha ka baqina marka wuxuu leeyahay wax walbo aniga aan idinku iraahdo sheega iyo marqaati furaanay waa marka aad meel xorriyada joogtid marka kale rabbiga wuxuu ku leeyahay xigmad isticmaal marka wuxuu leeyahay rabbiga timaha madaxiina waa tirsan tahay rabbiga wuxuu leeyahay anaga qiimaan leenahay dad qiimo badan aan ahay waa dadka ilaahay ayaan nahay rabbiga wuxuu leeyahay timaha madaxiina way tirsan yihiin timaha madaxiina oo dhan waa tirsan yihiin waa cutubka 10aad kitaabka Matayos ayay akhrinaya aayadda 30aad waxay leedahay timaha madaxiina oo dhan waa tirsan yihiin sidaa darteed ha baqina mar kale ayuu leeyahay rabbiga ha baqina baqdinta kitaabka wuxuu ku sheegaa baqdinta waa astaan ka mid ah iimaanka oo yar qofka iimaankiisa markuu yaraado iimaanku ilaahay ku qabo qofka markuu yaraado baqdinta iimaan yarida ka timaada rabbiga xirtiisa iyo annaga oo dhan waxaan leeyahay ha baqina rabbiga aayadan muhiim waay midaan inaan idin akhrinayo silacay ku saabsan tahay waxaan aayadahan akhrinayo maanta dhan waxay ku saabsan yihiin silaca iyo arrintan soo korortay oo qayb ka ah dhibaatada dadka masiixiyiinta ah ama ay la kulmi doonaan ama ay la kulmeen hadda rabbigu wuxuu leeyahay cutubkaas isla aayadda 32 cutubka 10aad kitaabka Matayos sidaa darteed wuxuu leeyahay rabbiga markuu hore noogu soo sheegay in dadku ay daraadiisa noo silcin doonaan daraadiisa ay noo nici doonaan walaaladeen aabayaasheen caruurteenna dadkoo dhan ayna silcin doonaan magaciisa dartiis markii dambe wuxuuna dhahay timaha madaxiina waa tirsan yihiin ha baqina dhowr mar uu dhahay rabbiga aayadda 32 waxay leedahay sidaa darteed mid walba oo igu qirta dadka hortiisa anna waan ku qiran doonaa aabahayga jannada ku jira hortiisa laakiin 33 waxay leedahay aayaddaas laakiin ku alla kii ugu dafira kii ugu diida dadka hortiisa anna waan ku diidi doonaa aabahayga jannada ku jira hortiisa rabbiga ereyga eebe oo masiixa ah wuxuu leeyahay dadka haddii aniga ay qirtaan dadka hortooda ay ugu qirataan aabbaha ilaaha ah hortiisa ayaan idinku qarin doonaa waayo ereyga eebe waa wiilka ilaahay waa wiilka aadanaha waa kan annaga dadka oo dhan kala xukumi doona maalinta yawmal qiyaamo wuxuu leeyahay maanta haddii aad dafirtid hadhowti waxaan dhihi doonaa kuma garanayn rabbiga haddii uu ku dafirane meesha aad tegaysid waa la yaqaanaa waa cadaab daa'im ah rabbiga isla cutubka 10aad aayadda 34 kitaabka Matayos rabbiga wuxuu ku leeyahay asagoo noo sheegayo in dadku magaciisa dartiis ay dhibaato noogu samayn doonaan ama ay nagu nici doonaan rabbiga wuxuu leeyahay ha u malaynin inaan u imid inaan nabad dhulka u keeno dad badan waxaan arkay aayaddan u daliishanaya qaab kale ama qaab kale u fasirayo khiyaano ah
laakiin sida laga wado way ku xigtaabo dad baa waxay leeyihiin masiixa wuxuu dhahay nabad inaan dhulku keeno uma imaan masiixa dagaal keen ayagoo rabo masiixa inay u saariyaan inuu dagaal adduunka keeno laakiin rabbiga saas kama wado ha u malayn inuu dhahay inaan u imid inaan nabad dhulka u keeno umaana imaan u dhahay inaan nabad keeno laakiin inaan seef keeno u imid waxaanse u imid oo dhahay inaan nin cadow kaga dhigo aabihiis gabarna hooyadeed naagna sodohdeed nin cadowgiisu waa dadka gurigiisu dhahay kan aabihiis iyo hooyadiis iga jecel ima istaahilo oo kan wiilkiisa iyo gabadhiisa iga jecel ima istaahilo kana isku talaabtiisa soo qaadan oo aan soo raacin ima istaahilo kan naftiisa helaa waa lumin doonaa oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa rabbiga wuxuu leeyahay waxaan dunida u imid inaan nin cadow kaga dhigo aabihiis gabarna hooyadeed nin cadowgiisa wuxuu leeyahay rabbigu waa dadka gurigiisa waayo dadka gurigaada ayaa waxay cadow kugula noqon doonaan masiixi maxaa u tahay seef ayaan keenu leeyahay dunida waayo aniga marka ay rumaysataan waa laydin dili doonaa magacayga aawadiis ayaa laydin dili doonaa marka dad baa khaa'inimo u adeegsada aayaddaas marka ka taxadar iska jir kuwaasoo kale iska jir kitaabka ayaan qofna kuu fasirin adiga iska u aqriso aayadba aayadda ay ku xigtay fasiraysaa suuradba suuradda ay ku xigtay fasiraysaa cutubba cutubka ku xigoo sii fasirayaa kitaab walbana kitaabka ku xiga ayuu fasirayaa kitaabka ilaa iyo bilow ilaa dhammaad ilaahay asaga ayaa isfasiraya hadalladiisa marka waa lama huraan in qofka masiixiga ah uu noqdo qof soo jeeda masiixiga waa inuu noqdo waayo qofku ugu horeyn waxa waaye qofku waa inuu gartaa cadowgiisa annaga cadowgeena aadana maahan cadowgeena waa ibliiskana wuxuu adeegsadaa dadkiisa annaga marka waxaan la dagaalayna ibliiska waaye dadkan soo adeegsanaya asagaa boqor u ah iyo jinniyadiisa asaga marka waxaa uga hortegi kartaa ibliisku awood uma laha inuu wax alle wuxuu rabo sameeyo wixii rabbiga uu fasaxay keliya uu samayn karaa kuwa rabbiga u fasaxay inuu wax isku sameeyo ugu samaynayaa laakiin rabbiga annaga wuxuu dhahay timaha madaxiina waa tirsan yihiin rabbiga wuxuu dhahay aniga ayaa rijir idin ahaa rijir idinka waa inaad isku dhiibtaan sida idihii inaad isku dhiibtaan waaye oo naftiina aad rabbiga u dhiibno rabbiga markaan nafteena u dhiibno rabbiga asaga ayaana ilaalinaya laakiin annaga haddii aan dhahno annaga is ilaalinayno rabbiga wuxuu leeyahay kan naftiisa helaa waa lumin doonaa laakiin kan naftiisa u lumiya aawaday kaas ayaa heli doona kitaabka Yoxana injiilka Yoxana rasuul Yoxana injiilkiisa cutubka 15aad aayadda 18 ilaa 25 waa aayadii hadda idin akhriyay 16aad aan dhahay Yoxana 16 aayadda 1 ilaa 4 rabbigu wuxuu leeyahay waxaan waxyaalahaas idin kula hadlay inaydan ka xumaanin waxyaalaha idin kula hadlay oo idin sheegay in dadku ay dhawaateed doonaan waxaan idin kula hadlay inaydan ka xumaanin oo dhahay oo ay ogaataan in arrintaas dhacayso waxay idin ka saari doonaan sunagoogyada meelaha macbudyada idin ka saari doonaan waliba saacadda imanaysa in mid walba oo idin dilaa oo u malaynayo inuu Ilaahay u adeegayo meelaha sunagoogyada waxay ahayd yuhuudda meelaha ay dadkooda isugu yimaadaan marka qofka ay gooyaan ay waxay dhigi jireen sunagoog ma iman kartid meesha community-gooda isugu yimaadaan oo yuhuudda dadka reer bani Israa'iil oo macbudkoodana waa community-ga marka meeshaas waa laga diiwaan geliyaa meeshaas qofkii haddii la jaro waxaa laga jaray waddanka iyo qaraabada dhan laga jaray waa sida annaga hadda noola dhaho Soomaali ma tihiin Soomaalinimada noola kaga jaray kale waa marka rabbiga wuxuu dhahay sunagoogida ka saar doona waa nationality-giina macnaha dhalashadiina ayay idinka saari doonaan oo dhahay idin doonaan ma tihiin dadkaas ma tihiin nagama tirsanin waliba rabbiga wuxuu dhahay saacadda imanaysa in mid walba idin dilaa uu malaynayo inuu Ilaahay u adeegayo rabbiga uu sii sheegay markaas wax sii sheegistiisa ahayd saacadda imanayso dhahay mid walba oo idin dila inuu u malaynayo inuu Ilaahay u adeegayo oo waxa ba lidin dilayaaba dadka qaarkood idin dilayaanba in Ilaahay u adeegayaan dadka qaarkood waxay idin nacayaan in Ilaahay u adeegayaan
dadka qaarkood waxay idin dhibaateynayaan inay ilaahay u adeegayaan sidaas ayay isku haystaan rabbiga wuxuu dhahay aayad saddexaad uu ku sii daraya oo waxay waxyaalahaas u sameyn doonaan waayo waxaan garanay aabaha iyo aniga toona waayo waxyaalahaas waxay u sameyn doonaan dhahay ilaah aabaha ah iyo wiilkiisa oo ariga ah ma garanaya ilaah aabaha ah iyo wiilkiisa oo arigiisa ah ma garanaya laakiin wuxuu leeyahay rabbiga aayadda afraad waxaan waxyaalahaas idin kula hadlay in markii saacadoodu timaad xasuustaan inaan idin sheegay rabbiga wuxuu leeyahay waxaan waa idin sii sheegay xasuusta hadalkayga rabbiga erigiisana waa nool yahay maalin walbana wuu jiraa xilli walbana wuu la socdaa rabbiga waxaas uu noo sheegayay 2000 sano ka hor uu sheegay ilaa hadda ayay jiraan dadka magaca rabbiga dartiis ayay noo necab yihiin kuwana magaca rabbiga ayay noo dilayaan ayagoo u haysta in ilaahay u adeegayaan haddaba waxa weeye taladii aan u jeedinayo dadka Soomaalida masiixiinta qofka Soomaali masiix hada taa aniga Soomaaliya ku noqday masiixi 6 sano Soomaaliya aan isku qarinayo gudaheeda ayadoon dad fara ku tirsay ogaa kaliya inaan masiix ahay xigmad waa inaad isticmaashid hadaa Soomaaliya joogtid Soomaaliya inkastoo aniga xataa waqtigayga aan iscilin waayo oo marmar kitaabka intaan qaada meena ka shaqeynay geen jiray dad saaxiibaday aan la qaybsan jiray kitaabka marmarna aan iswaanin jiraan dhigi jiray istartiibi marka waxa weeye waxa la rabaa marka qofka Soomaaliya hadaa joogtid ina xigmad isticmaashid dad badan oo Soomaali masiixiin oo Soomaali ku nool aqaana Soomaali joogan walaalayaal aniga xogtiina qofna lama wadaagi doono horan oo lama wadaagin qofkii Soomaali masiixi ah oo imaqlaayane waxaan idin kula dardaarmayaa Soomaali masiixi run ah waxaan idin kula dardaarmayaa walaalayaal dadka Soomaali joogo oo masiixiinta ah xogtooda dadka la wadaagina dadka la wadaagina Soomaaliya ajnabi waxay rabaan Soomaaliya marka aad joogtid marka xigmad inaad isticmaashid weeye oo tartiibkaaga u socotid rabbiga hadalkiisa qoran wuxuu noogu sheegayaa dadka masiixiinta inay u qaybsamayaan 4 qaybood dadku 4 qaybood u qaybsamayaan marka waa qaybta adiga qofna ma aamini kartid marka aad aayadahan hadda aan ku aqriyo qofna ma aamini kartid waayo dadku way isbedelayaan qofku isbedelaya haduu rabo isbedelaya qofka maanta wuxuu ku leeyahay iimaan baa leeyahay muumin ahay برنا وسبدل يا دور مركا نفط هذا قفنا قف بنا هذا هكو آمنين صرت هذا قفنا هو شيء بس إحنا ما بقى هو إيمان وإن عدد كلو ذاك قصبت هاي ربي جا يعذيك إن يدين لحيسو أنت قاعد حريتك هي ليست سيدا حتى عن هذا لأنه كله أو هذا شيء ربي إنه قرشين دون عنيجا سمدك ربي جا كبر يجرين عن هلا حريت واي وحن جعلنا عن هذلو ربي جا يسمي عن شيء ربي جا عن كفانو مسيحة عن كفانو مسيحة عن دتكيجو وشيجو وأنا حاسد ميه دتك أنا نمعذ عن هلا إن عن دتكيجا لقى يفسده والربا وحسوت عنه هذا لا يبغى فرصة أصلا إلهي سي أد يا ذا وجمعت علنا كتاب كمتايوس إنجيل كمتايوس رسول متايوس عتب كيسة تمني سدحات وربي وحنا وش جاي أفرق قيبات أو مرحلات دتكو كلمران أما قفك هل قف أمريكا مرحلة أما دتك أيا أقيبسم هل قف على جاي إنه مرحلة داس مرمرو مدة كلنا مركو حكتمرو مدة كلنا مركو سي حكتمرو إلا قدام بين قفك ونقض قف لسان أما بدتكو أنت سقيبات أي أقيبسم كران ربي وحوليه هاي إنجيل كمتايوس عتب كطبني سدحات كوين كسب بالله بيا ما نتاس يشوع أيا جورج كبحي أو فرديستي بدأ أكتيده أو واحد أسوأ الردد بدأت فربنا سيدا درت الدنيا أيوفولي أو فرديستي دتكي بدنا أو دم حياتي تجناه دت بدنا أسوأ أروري جورج مركو كبحي بدأ أكتيده أسوأ فرديو وهاي ربي وقت الدنيا الجوجي وحوها ماشي على ماشي الجو ولا سوي ما نجري وايد دتكو أيو عافين جري دت كان بقرطويد إلى أيو جالسين جري كوا بوكنا وعافين جري كوا دباتي سنة ونحرسين جري مركا ربي آد يا دون حرس بدن ويا ربي إرجع سوح موجنا يدبي عد إلهي وإرجع إبو الدنيا ذي يمت تبي عد إلهي موجنا إلهي إنه نعافيه وجعليه إلهي وحجعليه أنا بدبنه إلهي وحجعليه أنا فرح سنانه إلهي وحجعليه أنا نبض إنا كنا لانه إلهي وحجعليه إنا فرحت يوناك عندك أن كلنا لانه نفس الديانة فرحت يوناك جذهن أي كسب برقته وناك فرحت يتقبوبي يو دكنان
iyo jacayl dadka oo dhan loo qabo oo dadka aan la kala saareen markii uu soo doonis guriga ka soo baxay wuxuu fariistay badda xeebteeda agteeda iska fadhiistay dadkii baa u soo ururay marka doon halii keenay doontii buu fuulay dadkii xeebta isugu yimaadeen asagana doontii uu badda gudaheeda ayuu kala hadlayay dadkii banaan xeebta taagnaa markaasuu wax badan masaalo ugu sheegay isagoo leh masaal wuxuu kula hadlay marka tusaale wuxuu yiri beerey baa baxay inuu wax beero oo intuu beerayay qaar baa jidka geeskiisa ku dhacay kolkaas shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo carradu hoos uma dheereen laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay miro dhaleen mid 100 midna 60 midna 30 kan dhiga waxa lagu maqlo lahu ha maqlo rabbiga tusaalahan soo qaatay uu leeyahay nin beeraya baxay intuu wax beerayay qaar jidkiisa isku dhacay qaar kale waxay ku dhaceen dhul dhagaxa qaar kale waxay ku dhaceen meel wanaagsan adiga marka wuxuu leeyahay rabbiga kii dhiga wax lagu maqlo lahu ha maqlo masaaladii markii uu dadkii guud ahaan kula hadlay markii dambe xirtiisa u timid way rabbiga waxa goonida wuxuu sheegi jiray mar walba dadkiisa waxa goonida wuxuu sheegi jiray dadkiisa dadka iimaanka leh oo rumaysan ilaa haddana saas waa dadka iimaanka leh ayuu rabbiga sirtiisa la wadaagaa way weydiiyeen marka waxay dhaheen maxaa masaalo noogula hadlaysaa anaga ma fahmin dhaheen maxaa mar walba masaalo ugu la hadashaa dhahay dadka ay dhaheen markii dambe ay tuu yimaadeen waxay dhaheen masaalkii noo fasir rabbiga marka aayado kale oo meeshan waxa ka buuxo uu leeyahay idinka waa la nisiyaa wax qarsoon boqortooyada ina garataan laakiin dadka banaanka ayagoo maqlayna ma maqlaan ayagoo arkayna ma arkaan waayo ma gartaan wixii macnihii ma fahmi karo qofka haduu rabbiga qalbiga indhaha qalbiga u furay marka rabbiga masaalkii ayuu fasirayaa marka aayada 18 ayuu wuxuu leeyahay hadaba maqla masaalkii beerey wuxuu leeyahay mid kasta oo hadalka boqortooyada maqlo oo aan garan waxa uu yimaada ka shar kale oo ka dhifta wixii qalbigiisa lagu beeray waa kan kii jidka geestiisa lagu beeray rabbiga wuxuu leeyahay misaalka soo aragteen ninka jidka geestiisa lagu beeray waa qofka hadalka inta maqlo isla markii waa laga dhifsanaya qalbigiisa ma fahmaayo hadalkii koodi hor ma fahmaayo dad baa waxay leeyihiin kitaabkan see ku aaminsantiin dad waxay dhahan see waxaan ku aaminsantiin waxaan meel u socdaan meel ka socdaan lama yaqaanay waa runta laakiin anagu waan garanaynaa meel ka socdaan meel u socdaan kitaabkan macna weyn aniga uu leeyahay shakhsi ahaan aayad markaan aqrinayo aayadaas 100 mar isku kala laabtaa oo macna ay samaysan hal aayad kaliya markaan aqrinayo marka wuxuu leeyahay marka mid walba hadalka boqortooyada maqlo aan garan waxa uu yimaada kan shar kale oo ka dhiftay wixii qalbigiisa lagu beeray waa kan kii jidka geestiisa marka ibliiska uu imaanayo qofka hadalka boqortooyadu maqlaya aayadihi waa lagu aqrinayaa qofkii kan ibliiski ayaa qofkan ka dhifsanaya qalbigiisa waa ibliiska cadawga wuxuu doonayaa inaadan badbaadin wuxuu leeyahay marka midka kale uu sheegay wuxuu leeyahay oo kii meesha dhagaxa lagu beeray waa kan hadalka maqla oo kolkiiba farxad ku qaata xididisa isagu ma laho dhaa laakiin waqti yar buu sii jiraa oo goortii dhib ama silac ugu dhaco ereyga aawadiis markiiba waa ka xumaada kan kale oo jidka meesha dhagaxa lagu beero waxa waaye masiixa hal mar loo sheegayaa uu la soo boodaya farxad uu ku qaadanaa waqti yar ayuu sii jiraa dhaa rabbiga laakiin markii silac iyo dhib ugu dhaco ereyga aawadiis masiixa aawadiis ugu dhaco dhib iyo silac ugu dhaco isla markii uu ka xumaadaa ama masiixa aawadiis loo caynaya ama waa loo goynayaa ama waxa la leeyahay gabar kuma siinayno masiixiya tahay ama waxa la leeyahay hanti kulama wadaagayno ganacsi kulama wadaagi karno masiixiya tahay ama waa la dhibaateynaya waxa la leeyahay muwaadin mabtiid wadanka ag soo mariga Soomaaliya marka waxyaabahaas arko qofkii farxadda shalay ku qaatay masiixnimada durba uu ka laabanayo dhaa rabbiga markiiba uu ka xumaada hawdhaa marka intuu xumeeyo laabanaya marka qiilo sameysana qofkaas wuxuu leeyahay masiixnimada wax jira ma ahana laga yaabaa inuu haddana berito ku dhaho oo adiga dee ma ogid danaha ku kalifa qofkan inuu shalay masiixi noqdo waxa ku kalifay ma ogid maanta inuu ka soo laabtay waxa ku kalifay marka
marnaba adiga ha noqonin meesha dadka u yaacaan uga daba yaacaya meesha dabayshu socoto ayaa iska raacaya ha noqon adiga qof madax bannaan oo anigana hadalkayga dhegeysan qof kalena hadalkiisa dhegeysan ilaahay hadalkiisa dhegeyso ilaahay hadalkiisa baro iska u baro iska u aqriso yaan marnaba afhayeen iyo ku noqon qof kale taas waa inaa ogaatid wuxuu yiri marka kii qodxanta lagu beeray oo ka hadlaya rabbiga waa kan hadalka maqloo dhahay oo ka walwalida dunida iyo sababta maalka ayaa hadalka ciijiya oo wuxuu noqdaa miro la'aan midkan kalena adduunyo iyo hanti iyo ganacsiga ka walwalaya oo la ciijinayo kaasna waa la ciijiyo oo waxyaabahaas ciijinayo iimaankiisa waxa ciijinayo waxyaabahaas ciijinayo ka walwalida dunida iyo sababta maalka ayaa hadalka ciijiya oo wuxuu noqdaa miro la'aan kaasna miro madhalo oo adduunyo ka walwalaya iyo waxyaabo kale ku dhex jiraa kan dhulka wanaagsan lagu beeray rabbiga ka sheekana wuxuu dhahay laakiin kan dhulka wanaagsan lagu beeray waa kan ereyga maqla oo garta oo isagu waa kan miro dhala mid 100 midna 60 midna 30 kan wuxuu dhahay waa midka hadalka maqla ee garta maqal galiya waxa ma tiray hadalka uu maqlaya wuu garanaya waa kuwan oo ku miro dhala marka mirahaas way kala duwan yihiin kuwaas qaar baa miro badan dhalaayo qaar miro xoogaa dhexaade qaarna miro yar dhalanayo laakiin intaas waa dadka iimaanka leh oo kuwa hadalka maqla oo garta rabbiga wuxuu dhahay boqortooyada ilaahay oo dhan rabbiga wuxuu ku sheegay tan waa nolosha weligeed u dhahay rabbiga kitaabka Yoxana ku dhahay inay ku gartaan adiga oo ilaaha runta ah iyo inay gartaan Ciise Masiixkii aad soo dirtay boqortooyada oo runta ah waxa weeye inuu qofka ilaahay abuuraha inuu garto iyo in erey eebba uu ka abuuray inaa garatid oo Masiix ah oo rabbiga iyo badbaadiyahaaga marka Masiixa markuu qofka garto ilaahay Masiixa ka yimid oo Masiixa soo dirayna uu garto markaas ayuu qofka boqortooyada ilaahay heli karaa marka walaalayaal waa soo gulaanid rabaa dadka Masiixiyiinta ah oo Soomaaliya ku nool walaalayaal waxaan idin soo jeedinayaa fariintan mar kale iyo mar saddexaad waan kugu celinayaa Soomaalida Masiixiyiinta aan nahay dhaho ha aaminina kulligood qofka Soomaaliga Masiixiga saddexda arrin oo idin soo sheegay ku aamini kartid waa ku aamini kartaa ra'yigayga aniga haddii adiga ra'yi kale qabtid oo aad ku aamini kartid adiga xor ah laakiin ra'yigayga waxaan qabaa maadaama aan Masiixi muddo ahay Soomaalida Masiixiyiinta si fiican u kala aqaano isbeddelka Soomaalida Masiixiyiinta ku dhaco oo qaarkood ay dhahan Masiixi maniin aan dareemi karo waxa ay tahay ayaa waxaan ku sheegayaa walaale xaalad waxa lagu jiraa maantay Soomaali badan ayaa Masiixi noqonayso Soomaali badan baa ka xun arintaas ama inay Ilaahay u adeegayaan ha u maleeyaan ayaga ama ha ku jirto Soomaali in isku diin tahay aan jecelnahay dadka inay kala tegin rabnaa ha ka ahaato ayaga deerto ama dan kale ha kala haadaan ama sida aan soo sheegnaba ha ahaato sida runta oo rabbigu u dhahay awooday ay dadku cadow idinku noqon doona marka arintan waxay lama huraan ku tahay walaal Soomaali Masiixi hada tahay saddexdaas talo oo ama talooyin kale adiga haysid haddii aad qaadatid noloshaada waxa laga yaabaa inay si walwalin qofna horta waxa ku yeeli karo Ilaahay ayaa gacanta ugu hayo oo taas ka walwalin laakiin eebba wuxuu ku leeyahay xigmadaada isticmaal aniga wax saddexda arrin oo kugu soo jeedinayay Soomaali Masiixiyiinta Soomaaliya jooga gaar ahaan kuwaas baan u naxayaa waa meesha sharci kala dambeyn kama jiro waxaan kula talinayaa in dadka ay aaminayaan inuu yahay qof Masiixi hore inuu yahay koow number 2 inuu yahay qof soo Masiixi daacad ah oo ama rabbiga erigiisa wacdiyo amaba aan isqarnin oo Facebook ama social media banaanka qofka soo dhigo daacadnimadiisa oo ku fahmi kartaa qofka arintaas iyo mid saddexaad inuu qofka aad aaminaysid oo Masiixi aan ahay leedahay waa inuu noqdaa qof mas'uul ah qof mas'uul ah waa inuu noqdaa waa marka adiga fiirsid sida uu kula muuqdo marka arintaas ayaan ka tagayaa hadda kadib waxaan jeclaystay live-ka aan soo gali jiray waxaan ku bedeli doonaa inaan kaliya soo duubo live-ka xogaa dhibaato yar ayaa ka timid mushkil yar ka timid marka
كليبيداس أيام سو دوب دونا لايف كان وسوق دونا من مر أنا عادي شيء عادي إن لو ذاقيه لكن وحي أرنت وعد كسابسن هذه كدب إنكستو نولشيد أو نبي وعدي أنا كسابسن تنولشيد أنا مسيحة أدي هذا مجعلها مسيحة وحوين أيوة قبتي مرقد فركي أنا مرة دوايان رواينا صوت دو بس إذا مسيحة كنا قضي وقت كان مسيحي جاها مسيحة وحوي قبتي نمعدي سودان مرقد فركاس نهاد دوار رواينا صوت دو هذه ربي جرايو نبدأ سيد عيسى مسيح كقلت يا رب ربي بدباديه يا ربي مسيحة نبدأ قليه